waxaan tacsi u diraynaa masiibadii dhacday ummadda Soomaaliyeed oo dhan gaar ahaan shacabka Koonfur Galbeed madaxweynaha Koonfur Galbeed xukuumadda Koonfur Galbeed iyo shacabkeeda ayaan tacsi u diraynaa waxaan ahayn wafdi ka soo gurmaday dawladda federaalka oo u soo gurmaday dhibaatada meeshan ka dhacday in la qaybsano waxaan keenay deeq daawo ah waan idin garab taaganahay insha Allah wixii dhaawac ah oo banaanka u baahanna waa qaadaynaa wixii inta wax looga qaban karana waa garab istaagaynaa mar labaad iyo mar saddexaad waxaan cambaaraynaynaa dadka dhiigooda banaystay dadka masaakiinta shacabka Soomaaliyeed oo habeen iyo maalin inay dilaan go'aansaday kuwaasaan cambaaraynaynaa waana la iska celin doonaa insha Allah aad iyo aad u mahadsantahay sida wasiirku uu hore u sheegay dawladda federaalka Soomaaliya waxay ka jawaabaysaa baaqi madaxweynaha xalay uu soo jeediyay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ah in annaga aan maxaa si degdeg ah gargaar u gaarsiino reer Koonfur Galbeed waxa run ahaantii aan uga tacsiyeynaa dhibaatada dhacday waxaan idin leenahay waa idin garab taaganahay ilaahay hadduu yiraahdo inta dhimatayna ilaahay u naxariiso inta dhaawacana intii xaaladooda ay saamaxayso inaan inaan hore u qaadno ayaa nala amray oo waajib ahaan na saaran ilaahay hadduu yiraahdo waxaan ugu tacsiyeynaa ummadda reer Koonfur Galbeed dhibaatadan dhacday waxaan leenahay marxaladda lagu jiro darteed in ay ummaddu ay mar waliba foojignaato camaasha noocan oo kale amnigan in uu priority ugu horeeyo uu noqdo ayaan ku talinaynaa ilaahay idinkiisa waana wada mahadsantihiin mar walbana garabkiinaan taaganahay wasalaamu calaykum waraxmatullaah bismillaahi raxmaani raxiim wasalaatu wasalaamu calaa ashrafil mursaliin sayidina Muhammad wa aalihi wa sahbihi ajmaciin ama bacd madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka wasiirka tamarta iyo biyaha xildhibaanada la socota dowladda federaalka dhammaantiin waa la salaamayaa salaan kadib waxaan halkan uga tacsiyeynayaa shacab weynaha Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Baydhabo dhibkii shalay maqribkii galbihii ka dhacay magaaladan Baydhabo waxaan leeyahay intii ku dhimatayna Allah u naxariisto intii ku dhaawacantayna waxaan leeyahay ilaahay caafimaad degdeg ah siiyo sidoo kale waxaan rabaa inaan xukuumadda federaalka Soomaaliya aan uga mahadiyo iyo wafdigan deeqdan daawada ay maanta ay soo gaarsiiyeen iyo sidoo kale marka garab istaageen shacabkan reer Koonfur Galbeed ee ku dhaqan magaalada Baydhabo dhibkii soo gaaray sidii wax looga qaban lahaa runtii waxaan cambaaraynayaa sida shacabka iyo mas'uuliyiinta iga horeysaba ay qabaan dadkii ka dambeeyay falkaas waxshinimada ah fulaynimada ah qofka bini aadamka ah oo aan waxba galabsan kaasii jeeda attentionkiisu usan kugu soo jeeda ninka sida gaadma ah oo fulaynimo ah raganimo ka fog u soo weeraraya ayaan cambaaraynaya dadkii ku kacay ummadda Soomaaliyeedna waxaan ugu baaqay meel walba ay joogaan inay isu biirsadaan cadowgaas banaystay dhiigooda inay si macna darah u daadiyaan inay iska qabtaan meel uga soo wada jeesaan runtii hay'adaha amniga ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayagana waxaan amraynaa خصوصا xilligan aanu ku jirno oo xilli xasaasi ah in hawshii sugidda amniga ee shacabka u hayeen in intii iyo feejignaantaba intii ay ahayd in laga sii laabo la feejignaado la kordhiyo amnigana waxa way la xoojiyo dadka isku dayayana inay qalqal geliyaan bulshadan abuuraan xaalad aanan jirin shacabkaasna dhiigooda ay banaystaan hay'adaha amniga waxaanu ka codsanaynaa faraynaa in gacan adag oo bir ah la qabto shacabkana waxaan ugu baaqayaa inay gacan ku siiyaan hay'adaha amniga sugiddaas amniga la sugayo mar labaad waxaan uga mahad celinayaa xukuumadda federaalka Soomaaliya deeqdan ayna soo gaarsiisay iyo sida ay noogu soo gurmatay in shacabkaas wax loogu qabto waana mahadsantahay. Assalaamu calaykum waraxmatullaah.